nabad geliyo aad aad baa mahadsantahay marka ugu horeysa dagaalku maceeba ma nin baa naxariis ku yimi meeshan dagaalku waa ceeb oo muxuu ceebiyay dadkaaga iyo ciyaalkaaga inaad dagaal kula soo noqoto hadii laga maarmi waayo oo election ka ina bixiyo qaba wallahi dagaal baa sheegaysa way ololeysaa gees ilaa gees qodobkan maxaad uga baqaysaa aad baa mahadsantahay qodobka oran maayo salaad anaga salaad wallahi oo billahi tallahi way ifaysaa hadii la afkaaga ma reerka ku hadli ma afkii reerkan ku hadlina wariyaa reerka ku hadli kartid kulantu aan wanaagsan dadka aan daawanayo meel kasta oo joogtaan halkani waa Somali American TV on si toos ah idin ka soo gudbinayno istuudiyaha ku yaala magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee ariga Mareykanka barnaamijkan idinku soo fool leh ayaa daawadayaal waxaanu kaga hadli doonaa doorashooyinka kuwa Mareykanka maaha waa doorashooyinka Somaliland iyo wararka ugu dambeeyay ama meesha la isla marayo inagoo barnaamijkan maanta kuwii ka horeeyay ka hadalay doorashooyinka haatan codbixintoodii la bilaabay dalkan Mareykanka waxaan idin balqaadi doonaa Somali American TV in aan si toos ah idinku soo gudbino wixii warar ka soo kordha doorashooyinkaasi hayeeshee maanta si yar kooban waxaan u eegi doonaa iyadoo la isu diyaarinayo oo ay toddobaadun ka dhimantay doorashadii Somaliland ayaa haddana dhinaca bariga waxa ka socda dagaalo iyo hub urusi iyo waliba gurmad xoog leh oo laba dhinac oo ay dirirka soo dhexmartay toddobaadkii hore haddaba xagee isugu beeshubanaysaa doorashadaasi ma hirgeli doontaa saadaasha yaa heli doona madaxweyne Muuse Biixi mise Cabdiraxmaan Maxamed Cabdiraxmaan Cirro hadiise labadooda gari laba nin kabood qulsista leeyahay hadii mid helo ka kale ma ku qanci doona arrimahaasi ay ka taalan doona garabkeeda dabcan waxa fadhiya Mustafa Maatin oo arrintaasi aan ka wareysan doono Mustafa ku soo dhaw Somali American TV aad baad ma santahay waayahay bal iyo horta idul markuu warsa halka la isla orda guud ahaan calawan ku dul maray waxaan eegay electionka Mareykanka ka socda iyo ka Somaliland ka socda meelaha iska metelaan meelaha ku kala duwan iyo waxyaabaha laga fili karo iyo hab dhaqanka hadda cusub ee ka soo baxay baryahan dambe waxaad moodaysaa hadana soo qaadno Republican oo kale xisbiga kulmiye oo muddo baryahan dambe iska dhigdhigaya Republican oo kale horkiciisuna gaar ahaan dadka madaxweynihiisa u dhaqmay qaab carelessness oo iska waaliya oo magaranaysa dooyin oo yiraahdo waxaan Republican qaybta kale waxaad eegaysaa qaybtan xisbiga wadani oo iska dhigaya xisbigii jamhuuriga ah ee wadanka daryeelaha ummadda cadaaladda keen lahaayee dadka isu keen lahaa marka mid walba horta meel gaar ah ayaad moodaa inuu qabsatay labaduba waxay eegayaan sida magaranaysa u sameyn lahayn maaweelo ka duwantii hore laakiin runaanta markaad eegto Somaliland waxa ka socda waxa weeye wali dhaqaale darro nabadgelyo darro waxbarasho la'aan iyo caafimaad darro marka hab dhaqan kasta labaduba la yimaadaan wali waxaan keeni karaynin runaantii reality amba noloshii dalka hoostaalay Mareykanka si kasta u matalaanba dadku wali waa nool yihiin waana shaqaystaa caafimaadna waa helayaan ha kala duwanaadaan meelaha yar marka horta waxaad arkaysaa maaweelo badan oo iska dhigdhiga laakiin guud ahaan wadanka nabadgelyo darro iyo xilli aad iyo adag saad sheegtay lagu jiro colaado ayaa election soo timi Mareykankana waa dhacday waagana Vietnam ku jirnay dagaalkiisii Richard Nixon oo hogaaminayay colaadihii oo socda ayaa haddana magaranaysaa ay foodku soconayay marka maanta waxaad arkaysaa sloganka amba halqabsiga ka jira Somaliland gacanna ku codeeya gacanna magaranaysaa ku dagaalama taasoo isaga dhexdiisa ay ku maaweelinayaan reerka garxaadka la yiraahdo leeyahay qaar ahaan reerka laga jeclo codna waan siinayna dhinacana nagala dagaal taga iyaguna ay leeyihiin hayaay waan ku jirnaa xaggana ka bixiya marka waxa jirta riwaayado badan oo meesha Somaliland gudaha ka socota intaas horta waa inta guud ee meesha aynu ka arkayno way doorashooyinka hadii dastuurka dib loo eego oo aynaanu eegin hab qabaa'il aanu eegno hab dawladeed oo kale ama maamul oo kale dastuurku wuxuu dhigayaa in hadii abaar xoog leh ay saameyso dalka in xaq loo leeyahay in doorashada dib loo dhigo sidoo kale hadii colaadi ay iyana saameyn yeelato in dib loo dhigi karo colaadda marka bariga ka soo cusbanaatay ee la isu hub urursanayo ee qeyradaanta xoog leh ay ka soo yeedhay ma dhici kartaa in la yiraahdo dastuurkii dib loo dhigo doorashada dib loo dhigo horta ku noqonaa laakiin mid baan doonay inaan ka qanayo calow magacaabista qabaa'ilka maanta Somaliland ka jirta halkan waxa la leeyahay independent amba conservative amba compassionate amba republican amba dimuqraadi magacyo badan ayuu adeegsanaa inagu run ahaantii ma lihin xisbiya waxaan leenahay qabaa'il xisbigu marka wuxuu ku magacaaban yahay qabaa'il meel isugu tagay oo arrin gaar ah maamulaya marka mararka qaar kood meelaha waxa soo baxaya hadalhaynta qabaa'ilka waana sida kaliya halkan laga yiraahdo xaggan ay magaranaysaa tilmaan weey
tan imika constitutionka Soomaaliland waxa hadaad eegto wuxuu hadii jeer laga soo dheehday waa constitutionkan western country-ga electionku isagoo socda ayaa meelaha qaar xasiloon daro ay ka jirtaa salaaddan ku sii 2016kii tii la qabtay ee tan ka horeysay sool lagama codeynaynin meelaha qaar kamid ah waayo waxa ka jiray dagaalkii kalshaale meelaha badan lagama codeynaynin laakiin hadda doorashadu way socotay marka hadii jeer constitutionku ma saamaxayo in doorashada dib loo dhigo laakiin constitutionkiiba cala waxa ka soo hormaray hadda wadanka waxa ka jira uprising dad aad u kacsan oo doonaya election ku inaan 1 minute dhaafin marka u maleyn maayo in dib loo dhigi doono haba yaraatee horta gurtida away Mustafa dadka kala celin jirtay gurtidii sidaan warka ku hayo barna xaram xashkay qabteen barna way gaboobeen waa retire hadda waa halgabla marba xashka tagan ma wala diray way marka dalka yaa u dhexdhexaada sorry hadii la isqabto dalka horta marka loo aadayo waxge horta guud ahaan horta calaw dadkii marka guud ahaan Soomaaliland eegto hadda arinta dimuqraadiga waxa ka soo hormartay arin nabadgelyo arintii nabadgelyada waxay toos gacanta ugu xidhantay waa qabaa'il iyo saldanad iyo reeray gashay marka hadda waxaad moodaa maanta marjaca loo noqonayaaba inuu noqday buur madow marjicii dhammaay Soomaaliland buur madow buu noqday buur madow marba dadkii been u sheegaya oo marna la waan la soconna mar xagan dagaal ka abaabulaya marka horta marjicii Soomaaliland hadda waxaad moodaa inuu lumay laakiin marjaca loo noqonaya dambaan ku sheegay marjaca loo noqonaya ee dambe waxa weeye galbeed ilaa bari iyo ilaa inta u dhaxaysa nabadgelyo caam ah oo dadka wada deeqda ayaad moodaa dadku inay hoosta kaga midaysan hadii nabadgelyada la helo sug hadii nabadgelyadaas la helo waa taad moodaa maanta in loo wada codaynayo Mustafa hadii bari iyo galbeed loo kala qaybiyo Soomaaliland galbeedka Soomaaliland dadku waxay istaan laabtabiyo tayba gashan yihiin galay bay cunayaan way faraxsan yihiin way burburan yihiin bariga marka loo eego dadku qori la wada sitaan baasuuka sitaan rasaas bay ku jeeyeen qaarayeen waa hanjabayaan 4 saacadood waa maxay farqa u dhaxeeya galbeed iyo bari Soomaaliland anigu labadaba waan tagay labadaba waan tagay oo hadaad eegto imika gobolka ugu baaleeya awda loo kale runtii de waxbarashada jaamacad Amuudin baa la sheegaa laakiin dhaqaale weyn oo meesha yaala horta runtii ma jirto waxbarashadaas wax cusub ay keentay Soomaaliland ku soo kordhisayna ma aan arag gabiile waa la mid oo beeraha lagu sheegaa wax meesha beera ka beerayna ma arag runtii marka la sheego soo galbeedka halka kaliya dhaqaale ka soo baxa waxa way meesha laado gobolka meesha laado wajaalna cashuur baa laga qaadaa cashuurtana Hargeysa ay ku soo xidhantaa dhaqaalaha ugu weyn ee Soomaaliya magaalo qura ayuu horta runtii ka jira waxa way magaalada laado Hargeysa waxaad arkaysaa middle class weyn iyo corporation ayaa samaystay nabad iyo colaadda maxaa kala duwan u kaad horta bariga hadaad eegto dhaqaalihiisa ceergaabiga sanaag waan garanaa kunkiis nadu dambeysay reer sanaag horumarba ma sameyn waxaad maqashaa gobolka ugu weyn gobolka ugu dhaqaalaha badan ka ugu ariga badan leh way gaboobaano ma garanaysaa waxba kama jiraan ma dhintaan way togdheer waxba male togdheer dhaqaale burburkii ugu weynaa intii dawladda si aad baradhacday gobolada ku dhacay Soomaaliland ugu weyn horta waxa kamid ah gobolka togdheer xoolihii iyo naas nuujinta ilaahay waa laga wareejiyay toos barbaa lagu xiray dadkii middle class-ka waa hayaamay inta badan Hargeysa gobolka waqooyi galbeed bay wareegeen marka waxyaabaha immigration baaba ayaa ka dhacay laakiin waxaad moodaa dadka ka soo kabtay isbedelka noocaas gobolka togdheer isaguna waa dadka moogaa xoogaa si nool waayo cali waxa jirta dadka togdheer hal qodob aad moodaa in dadka xoogaa ka yiri duweyn oo ah deegaan jacayl oo inta badan xoogaa wali activity xagga dhaqaalaha gaar ahaan Ingiriiska Norway Sweden way jiraan laakiin guud ahaan gobolada inta ugu xoog badan leh waa gobolka waqooyi galbeed way okay su'aasheedii in yar bad ka yarboodi xaggana nabad xoog laba ka muuqato baan ku yiri xaggana colaad xoog laba ka muuqato bolosiga dawladda ugu dambeeyay haystay 30 sanadood ugu dambeeyay inta badan hadda dawladda kulmiye inta badan xooga waxay saartay dhaqaalihi haday noqoto galbeedkana inta badan dadku waxay moodaan qabyaalada qori horta ma keenin hadda halka iga soo dheerinayso qabyaalada oo qori ma keenin waxyaabaha ugu weyn horta keenay waxa weey calaw European-ku markay barnaamij dejinayaan amba program dejinayaan Somaliland waxay ka eegaan population badan inagu malihin populationka ugu weyn Ethiopia ku xidhay Ethiopia 200 milyan ayaa degan marinka marka ugu dhow ee la mari kara wuxuu noqday marinka galbeed marka xanaqaad dhaqaale had iyo jeer waxa moodaa inuu ka jiro wixii Ethiopia ku xidhmay koonfurta xamarna waxa moodaa wixii Kenya ku xidhmay inuu xanaqaad dhaqaale ka jiro hadaad marka eegto ilaha dhaqaale meesha ka soo baxay berbera ilaa Hargeysa population oo kaadi berbera ilaa Hargeysa marka dhaqaalaha naturalki wuu jira laakiin xagga nabadgelyada hadaad eegto
imika sool oo kale haddaynu eegno dee bere dhowta nabadgelyo yahay tallaabooyin wanaagsan bay ku kacayeen horey u socdeen laakiin nasiib daro dagaalo ayaa meesha ka dhacay burburkaas ugu jira waad oran kartaa gobolada bariga waxoogaa hakad ayay galeen 30 sano ee ugu dambeeyay laakiin haddaad eegto dadka tayada dadka gobolada bariga dadka ugu mutacallimsan waa dadka ugu riskiga badan leh ee businessyada tayadu ma gabayada qaylada maya waxaad ka soo eegtaa for example business abuuritaanka oo kale waxaad kaloo ka soo eegtaa xagga waxbarashada oo kale waxaad ka soo eegtaa xagga wax abuuritaanka oo kale philosophy political haday noqoto very active people way xaggaas ku active leh xaggaas active ka siyaasadda ku noqonaya doorashooyinka way doorashada hadaynu ku noqono qodob ee laba ka hadalno maxaad leedahay horta yaa loo badan okay goboladaynu eegin hadda gobolada waxaynu eegnaa gobolka leedahay awdal aynu ka soo bilaabnaa awdal boqolkiiba horta 80 hadaan ahayn 5 iyo 7 hadii ku dhawdahay sidaan ilaah ku hayo waxa weeyaan xisbiga wadani bariga hore almost 40 60 bay kala ahayn laakiin hadda isbedel weyn ayaa ka dhacay isbedelkan waxa hogaamiyay xildhibaankan dhowrka jeer la xiray Abiib Miyaha xildhibaan Abiib iyo habdhaqankiisa loo dhaqmay qiyaasta iyo daraasadaas waa adiga hadda maya matii xisbiga wadani baa buugeeda akhriisid mise adiga fikirkaaga mad kaalisa maya marka tahay 75% waa wadani maya actually waxa weeyaan waa ilaa hadda waxa jira census la sameeyay oo runtii saaka la hadlay waxaana gacanta ku haya hadii recordka loo baahan yahay dad hargeysa no problem marka waxyaabaha keenay waxa kamid ah dadka reer galbeedka wax badan bay ka sameeyeen gobolka awdal gaar ahaan habdhaqanka مقرنة مدحوينه كحوجين هذا واكن كدري يعني مرة بعد صار نقولين ولا بدل مدحوينه كحوجين عصب على كينه وحكسوا شيء قبل كعوضل حلبان كي قبل كسوا شيء صدق حفر شيء بالله حري ولو حكوا شيء رئيس مركا دد كيس عبر عايزين بكسمين مركا أوفر مني قبل كواحد حسب كلو عملين يبقى قبل كهالك كتير هلا عليه هذا بروفيسور سمتر هو جامينيو أو قرب صعداء مدحوين مسبح حسبي سكمية كايسوا هلا حرته هلا وحويان runtii marka la sheego waxa weeyaan waa pet project waxa weeyaan qayb yar oo kamid ah xisbiga kulmiye laakiin waxa weey waa one man show inta badan lama socdaan dad population badan oo isbedel doonay xisbigu xeelayana ma gobolada kale ku socdo laakiin waa xisbi la doonay mustaqbalka inuu tuso dadka reer Soomaaliya adariski ee xisbiyadan badankooda calaw waxa weeyaan waa adaris waa beeshii dhexe badankooda laakiin waxa la doonay meesha dad adaris inay ka muuqdaan garanaysa marka isagu waa adariski un baa meesha laga wada laakiin tayo badan waa waraab u taag badan way gobolada kale baad dul marayeen Hargeysa Togdheer Ergabo meesha foodka ugu badan horta yaala waxa weeye waa gobolka Maroodijeex jeexna loolan adag ayaa ka jira meelihii xisbiga wadan uu ka codeynayay sanadkii hore boqolkiiba 30 xitaa way ka fara baxsadeen bariga hore xagga kulmiyadan maanta xisbiga wadan aagagiisii oo dhan boqolkiiba 100 waa mobilized way xisbiga wadani wuxuu ku guuleystay marka inuu noqdo inuu food ka helo xisbiga kale ee kulmiye haddaad eegto marka base iyo asaaskii kulmiye dad badan baa ka soo farbaxay boqolkiiba 80 dadka imika ku soo biiray xisbiga wadani dalkaysa waa dad ka soo barakacay siyaasi ahaan iyo dhaqan ahaan ka soo barakacay xisbiga kulmiye marka isbedelku halku ka socdaa lagu loolamaya maaha wadani gudihiisa waa secure gareeyay amba wuu helay dadkiisi laakiin wuxuu ku dagaalamaya amba ku loolamaya waxa weeyaan qaybtii kale xisbiga kulmiye Martino doorashada imika Soomaaliya ka jirta doorashooyinkii hore way ka duwantay yes mid kaftana maaha ama ciyaar waa mid tafa aad u adag hadii aad iyadana saadaalisid markaad eegtid duruufta haatan jirta labada nin ee tartamaya ee madaxweynaha iminka Muuse Biixi iyo Cabdiraxmaan Cirro oo xisbiga wadani murashax u ah waad sheegtay gobolada si ay u kala cod badan yihiin yaa sidee baa madaxweyne noqon kara mustaqbalka orda maanta guud ahaan gobolada bari waa laga joojiyay ma garanaysaa abaabulkii doorashooyinka maadaama ay abaaro iyo dagaalo baadan ka socdaan horta waa la hakiyay haddaad maqasho horta haddaad tiraahdo natiijo iyay raacaysa horta waqooyi galbeed waynu sheegnay gobolka Togdheer majority-giisa waa wadani gobolka Sanaag sidoo kale Sool haddii ay codayn lahaayeen laftigiisa waad garan kartaa cidda ay codanayeen isku soo wada duub su-aashaad weydiisay waxa weeye yaad u malaynaysaa sanadkan inay guuleysanaysaa horta dee laba arrimood baa dadku maanta maxay u codaynayaan horta wey su-aasha ugu weyn meesha taala dadku maxay u codaynayaan Soomaaliland dhaqaalaheedu 10 sano ka hor sidoo haba maanta yahay soo maaha shaqaalaheedu waa sida yihiin ay maanta wax cusub xagga dhaqaalaha maanta ku soo biiray waa maxay marka hadaba sida kaliya maanta loo codaynaya waa qodob qura waa nabadgelyo waarta in la helo bari ilaa galbeed ummadda reer Soomaaliland ay wada noolaato sidaasna waxaad moodaa imika in laga doorbiday markii la eegay recordka kulmiye iyo markii la eegay xisbiga wadani horta xisbiga wadani maamul ma qaba laakiin waxa la hayaa waa kii kulmiye
kii kulmiye markii la eegana wadanku colaaday isdaba jooga iyo arxan goys aan la isu naxayn ayaa soo maray corruption aad iyo aad u badan marka waxaad moodaa maanta in loo codanayo isbedelkaasna waxaad moodaa inuu u socdo dhinaca xisbiga wadani ayaad moodaa hadda u socdo laakiin waxyaabo badan oo ku xeeran ayaa jiri kara way iyaad u badanaysaa guushu aad haddii aan guusha maanta eego hadday noqoto guusha cod iyo kaadh horta anigu ma aaminsanin sideedaba ma aaminsanin in kaadh iyo cod un lagu kala badiyo xarifnimo lagu kala badiyaa kaadh iyo cod horta laguma kala badiyo waxyaabo kale ayaa lagu kala badiyaa waxaan arkayaa horta electionkan waxaad la tartamaysaa madaxweyne horta xilligiisu dhacay oo mari hore dhacay waxaad la tartamaysaa madaxweyne xilligiisu intuu dhacay xilligii la siiyey dambe uu ka daba dhacay madaxweyne waxaad la tartamaysaa ciidamo abaabulay oo dagaaladii wixii dee dhacay aynu ogeyn waxaad la tartamaysaa madaxweyne dadkii oo dhami ay ka soo horjeedaan qabyaaladii fogaatay ee xashada fogaatay kala dambeyntii yaraatay isna caybkana batay karagiina fogaaday sababtan may dhacdeen imika in la tartamay madaxweynaha waxa ahayd kol hore in electionkaas madaxweynaha sida Biden uu ninkan iska nastaabahay tartanka horta uu soo galayba imika waa u guul darro xisbiga wadani anigu sidaan aaminsanahay waa u guul darro xisbiga wadani waana deelqaaf inuu hadda maanta la tartamo musabixood anigu taa deelqaaf baan arkaa isku soo wada duub kaar mar haddaan lagu kala badinayn oo arrintu ay technicality noqonayso codaynta iyo kaararka anigu waxaan leeyahay overwhelmingly 560 waxa ku badanay xisbiga wadani 560 isaga guulaysan Cabdiraxmaan marka madaxweyne noqon kara badle 560 madaxweynaha kaarar hadday noqoto imika waxaad maqlaysaa ishii iyo kaararka wala saar codayn hadday noqoto Cabdiraxmaan way sidii doonto ha noqoto haddii Cabdiraxmaan Ciro uu noqdo madaxweyne Soomaaliland ka noqdo hadiiba in case baan ka hadlay madaxweyne Muuse Bixi ma ku qancaya waxa ka badiyay ama ka guuleystay Cabdiraxmaan Ciro waa qodob dhinaca kalena hadii uu guuleystay in case Muuse Bixi uu guuleysto Cabdiraxmaan Ciro ma ku qancaya madaxweynihii hore ayaa soo noqonaya oo ka guuleystay labada qanac ee kala saar horta wararkan ay madaxweynuhu dhawaan wuxuu la shiray qoyskiisa waa mar qoyskiisa reerkiisa يعني ما قبيلك مثل قبيلكيس انت اكتف كان توصل ولا شري laba qodobna uu kala hadlay wuxuu yiri iskaashigeenu sameeynay ee bariga galbeed ahayd sheegan la oran jiray waxad fur baynu kala kulanay waxad fur aynu kala kulanay wax maanta la hada sheegan ma jirto nimankaas waxay noqdeen independent waana isbedeleen waxaana alliance leeyihiin dareen xisbiga wadani taa markii anigu aan maqlay anigu waxaan eegay isbedelka waxyaabaha Kenya aasaas u abaaneegay reerka leedahay bar jecel waxaad ka soo qaaday independent ayaad ka soo qaadaysaa meesha waxaa loo lamay foundationka hoose waxa tartamay waxa weeye garxajis iyo awal baa meesha ku tartamay inta badan independent sida halkan ay ahayd independent ka marka issue amba saadaal baa jirta lagu saadaalin karo independent ka hadda maanta qoladan habar jecel waxay codanaysaa nabadgelyo ayay codanay way deegaanadooda colaad baa dul saaran ma garanaysaa aasaas military baa yaala aasaas arxan goys baa yaala dhaqaale darro ah burbur reereed ayaa meesha ka jirta igu noqotay qanac marka taas markaa saas ku leeyahay tii qanacan kugu noqonay marka iyagu way isbedelayaan dabadna xisbiga wadana overwhelming way u footeynayaan isbedelka marka ina bixiyo madaxweynaha iyo cabinetkiisu marka way arkeen ogow 80% ina bixiyo maanta wixii ag fadhiya waa ka tageen lama joogan laba qodob ku soo gunaan gursay election kan waxa helayay buu yiri xisbiga wadana opposition party ah laakiin alliance la sameeysta maanta in condition 2 laba qodobna negotiation hal lagu siiyo number 1 inaan helo protection difaac aan hadhow tan laga daba iman sababta maanta keenaysa maanta hantidii ku dambeeyay aad tusisay wasaaradda muxuu xaraashay way marka waxa leeyahay Muuse Bixi uu ku qancaya hadii Cabdiraxmaan guulaysto uu ku qancaya laakiin laba qodob protection u baahay number 1 inaan laga daba iman shuruud buu ku xidhay way Cabdiraxmaan hadii la yiraahdo Muuse ka shuruud buu ku xidhay horta ku sheegay number 1 inaan laga daba imanin wixii dambiye dalqa talabaad uu codsaday lacaga badan oo Djibouti igaga xiniban oo dhowr iyo 320 milyan in lacagtaan la ila furdaamiyo aniga jeebada ku soo lacagtaan anigu sidaan ku hayana waxa weeye waa lacag dawlad waa hanti dawlad soo ma shaqeyso way ka gudubtaa marka horta ninkaas oo reeray nin qancay way Cabdiraxmaan ayaan ahayn igu sanoo laakiin hal qodob baa jirto aniga ii gaara oo ogahay anigu ma aaminsanay Cabdiraxmaan inuu ka maran yahay ina bixi way sidee
والله shaqeynaya badle negotiation inay ku wada jiraan iyo wada hadal u soo socda anigu I know that anigu I know negotiation xasmiyay marka negotiation ma galayna baa siyaabo badan ayuu leeyahay laakiin waxa isbedel baa loo codeynaya isbedelka hadduu Cabdiraxmaan Cirre keeni waayo madaxweynimadiisu maxna male iyo kursi laakiin isbedelka hadduu keeni waayo oo mar labaad kulmiye wadanka maamula iyadana cawaaqib xumay leedahay marka madaxweyne biixi uu qancaya wuxuu waliba qancaya يوم القيامة مستر بيحي وحو هايستا ما أنت معها مركو ويا معها مركا وقنعي وصمري هديو يسير حتى هل أو بوب أم بحد يا غير كيسا قنعنا وكسر كذا كسر كومبليت وهذا فعلا كومبليتلي واي أرنك وجو هوسية ما أنت إذا غير كيسا كيمنا يا وحوي مرة سياسة لهدور دعو يا هل كون فريسنا يسوي تكير معها غير كيسا قنعيا واي هل كان يسوي ولي إيمال عبد الرحمن إنه قنعي إنه قنعي أدي لك بديه عبد الرحمن متولكي وأنا أقول كشرو سي سجى سجى صادم وقنعيا صادم به لكن قنعيا تركي ودجال ما يرمي ده أنا كم ذا ودجال مثلا ما يدي وأنا قنعي نيم حسب الصدق قنع أصبح بدل من غنية ده قنعوا نوعي بديه يتري هذا كرتا إيه ده يتري عادتك هذا كرتا ودي كرتا ما أقول يسمى هذا كرتا في سنة اللي تشتت بدل هذا كرتا ودجالنا كرتا دجالك موح إن جمع جمع ودك دجال بالو كنا ودجالك معبة دجالك معبة من نبى نحرسك يمي ماشان دجالك عيب ده عيب حدي عيالك هنا دجالك وصل نقطة حدي اللي جمع موايو حدي اللي جمع موايو واللكشن كاين بيحقبه والله الدجال بس شيء يسوي يقولون سجيس لا جيس قلب كان هذا قبل قيسا هذا ما صدق قلب كان رمايو سراد أنا قاعد سراد والله وبالله طلع ويفيس هذا لا أفكار ما غيرك كوهل ما أفكار غير كانوا كوهل نوريا غيركم هذا كرت halka ay joogtay waa hagaag daawadayaal barnaamijkaasi oo aanu kaga hadlaynay doorashooyinka ku soo fulay Soomaaliland oo haatan toddobaad qori ay ka dhiman tahay ayaa daawadayaal intaasi aan ku soo koobaya tan iyo kulankeena dambe barnaamijkan oo kale inta dib u kulmi doono inta ka horeysa waxa la xiriiro dhamaantii midka ka tagay sida ayo nabad geliyo aad iyo aad baa mahadsantahay